kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay ka gaabisay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab taa beddelkeedana ay ku mashquulsay duminta maamul goboleedyada dawladda Hindiya oo baabi'inaysa sharci muddo 70 sano ah si gaar ah u ilaalinaya xuquuqda dadka ku nool gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilowna hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku eedeeyay inay ka gaabisay dagaalka al-shabaab isagoo sheegay in tabardarrada hay'adaha amniga darteed ay keentay dhimashadii الله ونحرسته دقي هراء مجال مقدشو عبد الرحمن عمر عثمان يريسو عبد الرحمن عبد الشكور ورسمع يا دنك كلا شيء إن كواحد على الشباب أي عن شورك قادو دكدة يمالها كلا إمام الدولة الصومالية وربحين تانو حا مقدشو كصدري وريه إن حسن كافي قويستي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور أو مدحوها حزبك معارض كودجير يا مانت مقدشو قبتي شر جرائد أو هذين علوس جسو جدي دولة الصومالية عبد الرحمن ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay ku dhaxmilmeen hay'adaha amniga iyo ilaha dhaqaalaha isagoo sheegay in qatar badan ay arintaasi leedahay عبد الرحمن ayaa sheegay in dhimashadii injineer Yariiso ay ku dhacday habacsanaan ka dhex jirta laamaha amniga ee Soomaaliya Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka oo halka marka laga tacsiinayna markii la dilay gudoomiyaha gobolka asagoo xaafadda wardhigley oo haweenka ama dadka shacabka la kulmay laguma dilin asagoo xaafadda holwadaag joogo oo la kulmaya garoon isbatiiro ciyaar ku jira laguma dilin waan ognahay Yariiso nin dhaqaaq badan oo socod badan oo dadweyne aad u dhex jiro ahaa laakiin waxa lagu dilay xaruntii gobolka dhexdiisa lagu dilay waxaas waxa la yiraahdaa waa taxaddi ama waa challenge wax la yiraahdo waa car inay ashaabna leeyihiin oo ay saxataa qofkii ku beegsanayaan meeshii ugu dambeysay ee nabadgelyadiisa iyo security-giisa ama amaankiisa oo ku ilaashadaha ay ku beegsanayaan ay xataa banaanka raasanayeen hadeertan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay lacag badan ka hesho canshuur ay ka qaado ganacsatada dekedda Muqdisho iyo meelo kala duwan oo ay ka taliso dawladda Soomaaliya socotiin al-shabaabku inay aad u dhex galeen hay'adaha dawladda gaar ahaan kuwa amniga iyo hay'adaha dakhliga sidoo kale waxaan la soconnaa oo dhamaanteena ogtihiin inay canshuur ka arursadaan qaybo kala duwan oo kamid ah ganacsiga dadweynaha Soomaaliyeed iyo meelaha ay dawladdu gacanta ku hayso ugu intahay dekedda ay ugu horeyso waxaad ogtihiin in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan container kasta oo dekedda yimaada oo xogta aan haynana ay sheegayso inay containerkii 40 feet ahna ka qaadaan $160 kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100 hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in dawladdu ay ku mashquulsan tahay sidii ay u aamusin lahayd siyaasiyiinta diidan iyo sidii ay u kala furfuri lahayd maamul goboleedyada waxa keenay dawladda oo wax istiraatiijiyada dagaalka al-shabaab aan lahayn oo wax aragtiya oo ay kula wajahayso shabaab aysan jirin xajmiga iyo culayska ka imaanaya cadawga dadkeenii maanta nin doorkoodii ama hablahoodii doorka ahaa gumaadaya wax ay ka qabanayaan aysan jirin dawladdu waxay ku marquushan tahay siyaasiyiin inay la dirirto baarlamaan inay kala qaybiso maamul goboleed inay dumiso hawshii loo igmaday shacabka Soomaaliyeed oo igmadeen kuma mashquulsana dadka Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed marka waxaan leenahay waxa la kaga baahan yahay indhaha inay kala furtaan oo cadawgan in xasuuqaya iyo midka idii hodaya inay maaragtay hoosaasinaya labadaba inay isku mid yihiin inaan ogaano Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Muqdisho ku sugan ee sida weyn uga soo horjeeda dawladda Soomaaliya villa Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaan ilaa iminka soo saarin hadallo ku saabsan dhaliilaha loo soo jeediyay dhinaca kalena VOA ayaa xiriiro kala duwan la sameysay mas'uuliyiinta dawladda laakiin ilaa iminka wali nooma suurtagelin inaan wareysano xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay toogashadii habeenkii Sabtida ka dhacday gobolada Texas iyo Ohio ee dalka Mareykanka isagoo oo sheegay in muwaadiniinta Mareykanka ay cambaareeyaan cunsurinimada cadawtinimada iyo waliba kooxaha mayalka adag
ee caddaanka ah. Trump oo goordhaweyd khudbad u jeediyay shacabka Mareykanka ayaa sheegay in cadaawaddu aanay meel uga banaanayn Mareykanka. Waxa uu ku baaqay in xukun dil ah lagu fuliyo kuwa geysta weerarada ay dadka ku dhintaan ee cadaawadda ku salaysan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in internetka iyo baraha bulshada ay gacan ka geysteen inay xagjireeyaan dadka. Wuxuu ku amray wasaaradda cadaaladda inay la shaqeyso mas'uuliyiinta dowladaha hoose iyo shirkadaha baraha bulshada si loo ogaado dadka toogashada geystay ka hor inta aysan ficilkaasi sameyn. 29 qof ayaa ku dhintay markii 2 nin oo cadaan ah ay Sabtidii iyo Axaddii toogasho ka geysteen magaalooyinka El Paso ee Texas iyo Dayton ee Ohio. Dowladda Hindiya ayaa maanta ku dhawaaqday inay baabi'isay qodob sharci ah oo ku dhawaad muddo 70 sano ah si gaar ah u ilaalinayay xuquuqda dadka ku nool gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Qodobka 370 oo ah qodob ay dowladda ku dartay dastuurka 2 bil kadib markii ay Hindiya xorriyadda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska sanadka 1947 ayaa dadka gobolka Kashmir oo ah dad muslimiin u badan u ogolaanayay in ay yeeshaan maamul ka madax bannaan dowladda dhexe marka laga reebo dhinacyada arrimaha dibadda, difaaca iyo isgaarsiinta. Waxa kale oo uu qodobkan dhigayay in aysan Kashmir ka shaqeyn karin muwaadiniinta kale ee Hindiga ah ee ka soo jeeda gobolada kale ee Hindiya iyo in uusan Kashmir dhul ka iibsan karin qof ka soo jeeda gobolada kale ee Hindiya. Wasiirka arrimaha gudaha dalka Hindiya Amit Shah ayaa maanta baarlamaanka kaga dhawaaqay baabi'inta qodobkii ilaalinaya xuquuqda dadka Kashmir, isaga oo sheegay inuu dhaqan galay maanta kadib markii uu saxiixay madaxweynaha. Tallaabadan ayaa ku soo beegantay saacado kadib markii ay ciidanka amniga Hindiya ee gobolka Kashmir ka bilaabeen howlgallo ay ku xireen dad ay ku jireen siyaasiyiin, waxaana laga cabsi qabaa in gobolka ay ka dhaliso colaad hor leh. Pakistan oo iyaduna sheegato lahaanshaha gobolka Kashmir 2 jeer oo horena gobolka dartiis dagaal la gashay Hindiya ayaa cambaaraysay go'aanka ka soo yeeray dowladda Hindiya. Kashmir ayaa u kala jabsan 2 qayb waxaa maamusha Hindiya, qaybta kalena Pakistan. Guud ahaan dadka degan ayaa waxa intooda badan ay yihiin dad muslimiin ah. Wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa maanta sheegay in Iran aysan marnaba iska indhatiri doonin dambiyada badeed ee ka dhaca gacanka Hormuz maalin kadib markii Tehran ay qabatay markab laga leeyahay dalka Ciraaq oo ay ku eedeysay in uu waday shidaal sharci darro ah. Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa markabkaasi iyo 7 shaqaale ah oo saarnaa ka qabsaday jasiiradda Farsi ee Iran ee ku taala dhinaca waqooyi ee marinka Hormuz sida ay sheegeen warbaahinta dowladda. Tallaabadaas ayaa loo arkay mid Iran ay ku muujinayso awoodeeda xilli ay xiisad xooggan kala dhaxayso reer galbeedka, taasi oo wasiirkeeda arrimaha dibadda Maxamed Javad Zarif uu ku eedeeyay in ay hurinayaan mas'uuliyiinta Mareykanka. Waxa uu cambaareeyay cunaqabataynta ay Mareykanka Arbacadii ku soo rogeen isaga oo sheegay in Washington ay xirtay albaabkii diblomaasiyadda ee heshiiskii nuclearka ee laga gaaray sanadkii 2015 kaas oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka baxay sanadkii tagay. Dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Heiko Maas ayaa maanta oo Isniin ah xaqiijiyay in dalkiisa aanu ku biiri doonin howlgalka dhinaca badda ah ee uu Mareykanka hogaaminayo ee la rabo in laga fuliyo marinka Hormuz. Wasiirka wuxuu intaas ku diray in Jarmalka uu door bidayo howlgal ay Yurub leedahay, hase yeeshee waxa uu xusay in howl noocaasi ah aanay fududaan doonin. Maas ayaa wariyaashu u sheegay in xilligan ay Britain danaynayso inay ku biirto howlgalka Mareykanka, hase yeeshee Jarmalku aanu doonaynin. Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, waxaanu doonaynaa howlgal ay Yurub leedahay, waxaanu intaas ku daray in arrintaasi ay hadda miiska saaran tahay, balse ay waqti qaadan doonto in midowga Yurub lagu qanciyo inuu isu taago howlgal noocaas oo kale ah. Safaaradda Mareykanka ee Berlin ayaa sheegtay in Mareykanka uu ka dalbaday Jarmalka inuu ku biiro Faransiiska iyo Britain isla markaana uu qayb ka noqdo howlgalka ilaalinta dhaqdhaqaaqa badaha ama maraakiibta isaga kala gooshto marinka Hormuz si looga hortago xadgudubka Iran. Jarmalka ayaa si codsigaasi ku gacan sayray. ugu dambeyntiina shaqo joojin ballaaran ayaa cuuryaamisay howlihii shaqo ee jasiiradda Hong Kong maanta oo Isniin ah. Guud ahaan shaqaalihii ayaana saaka tagin goobihii shaqada, sidoo kale waxaa la hakiyay 200 oo duulimaad. Dibadbaxayaasha ka soo horjeeda xukuumadda ayaa xiray wadooyinkii iyo goobaha laga raaco gaadiidka si ay shaqaalaha ay uga soo horjeestaan inay tagaan xafiisyada iyo meelaha ay ka shaqeeyaan.
gudoomiyaha Hong Kong Carrie Lam oo haysata taageerada xukuumadda dhexe ee Shiinaha ayaa ku tilmaamtay shaqo joojintani iyo dibadbaxyadaba kuwa cuuryaamiyay dhaqaalihii Hong Kong. Lam ayaa diiday inay iscasisho kadib markii ay dibadbaxayaashu ay ka dalbadeen inay xilka ka degto. haatanna waa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaana inoo haya Maxamuud Mascade. wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena qubanaha maanta. waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool ay iskaga hor yimaadeen koobka Community Shield oo lagu qabto waddankaasi toddobaad ka hor horyaalka waddankaasi furitaankiisa. waxaana habeenkii xalay labada kooxood ee Manchester City iyo Liverpool ay soo bandhigeen ciyaar xiiso badan oo labada kooxood ay isku tijaabinayeen awood ahaan inay diyaar u yihiin horyaalka waddankaasi inay sanadkan soo socda ku guuleystaan. laakiinse kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo qaybtii hore gool la hormartay ayaa laga daba keenay. waxaadna moodaa ciyaarta labadeeda qaybood in kooxiba ay awood sarreysay. qaybtii hore Manchester City ayaa lahayd, qaybtii dambena Liverpool. hase ahaatee rigoorayaashii la dhigay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay. kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyana ka mid ah kooxaha waddanka Ingiriiska ee sanadkan u diyaar garoobaya inay horyaalka waddankaasi meel wanaagsan ka tagaan ayaa habeenkii xalay garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona kooxda kubadda cagta ee Barcelona kula ciyaaray. waxaana lagaga soo badiyay Arsenal 2-1 oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay guusha ku raacday. ciyaaryahan Luis Suarez oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. waxaana macallin Emery iyo kooxda Arsenal horyaala sida ay xal uga gaari lahaayeen dulduleelada difaacooda oo aad moodo weli macallinku in aanu xal u helin. inkastoo xilligan macallinku uu weeraryahan ku soo iibsaday lacag gaaraysa 72 milyan oo ganiga Ingiriiska, haddana weli wuxuu suuqa ugu jiraa sidii uu ciyaaryahan difaaca u keen lahaa. walow kabtankii kooxda Koscielny uu kooxda ka gadooday islamarkaana laga yaabo maalmaha soo socda kooxda inuu isaga tago. ugu dambeyntii dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa quus ka taagan soo xirigelinta ciyaaryahan Paul Pogba. taa beddelkeedana haatan kooxdu waxay u diga rogatay baa la leeyahay in ay kooxda kubadda cagta ee Ajax ka soo qaado mid ka mid ah xidigihii kooxdaasi u suurageliyay in ay kaalinta labaad ka gaaraan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. ciyaaryahan Dani van de Beek ayaa la leeyahay waxay haatan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ku doonaysaa in ciyaaryahankaasi ku buuxiso booskii ay ugu tala gashay Pogba in ay keento. dhinaca iyo waddanka Ruushkana ciyaaryahan Malcolm oo 3 bari ka hor ay soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Zenit ayaa haatan waxaad arkaysaa in kooxdiisa taageerayaasheedu ciyaaryahankan ay ku soo dhaweynayaan cunsurinimo islamarkaana ay dirayaan fariin ah inaan looga baahnayn garoonka St. Petersburg. ciyaaryahan Malcolm oo ah wiil madow u dhashay waddanka Brazil ayaa lagu soo dhaweeyay boorar ay ku xardhan yihiin erayo sheegaya dooni mayno nin madow kooxdan inuu u dheelo. taasina waxay culays badan dusha ka saaraysaa kooxda Zenit oo ciyaaryahankan laga yaabo bisha January inay iska iibiso. taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Zenit ayaa muujinaya in ay cunsurinimadu heer ka gaareen. mana ahan markii ugu horeysay oo waddanka Ruushka koox ka tirsan ay falal cunsurinimo kula kacdo ciyaaryahan madow amaba ciyaaryahanada madow ee ka ciyaara gudaha waddanka Ruushka. daawadayaal xubinta ciyaar waa naga intaa tan kulan dambe oo Mascado idila sida iyo nabadgelyo. inta ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii qubanaha maanta. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.